waayahay aad baa u mahadsantahay maxamed daawadayaal adinkana aad baa u mahadsantihiin daawashada barnaamijka inta ayaa maanta kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga ee HBN online TV waxaynaga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay HBN online TV ama hore aadan ugu xirnayn kusoo biira barahina kala duwan ee internetka ku leenahay inta ku kulmi doona barnaamijka midka ku xiga insha Allah nabadgelyo American International High School bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kula wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga HBN TV barnaamijkan maanta gabi ahaanba waxaan kusoo qaadanaynaa ma dhici kartaa in dagaal si degdeg ah mar kale uga dhex qarxo Iran iyo Israel inkastoo ay jirto xabad joojin aan xoognayn oo u dhaxayso Tehran iyo Tel Aviv haddana waxay soo taraysaa cabsida laga qabo in dagaalku uu mar kale dib u qarxo iyadoo hogaamiyaasha labada dhinac ay isdaafsanayaan hadallo adag oo colaad huwan macluumaad arrimahaas la xiriira ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah ku soo dhawow qaari online qurba joogta dadkayga u barashadii quraanka iyo qalinkii aqoonta oo online lagu qorsheeyo qadka haatan laga helo waa qaari online qabso oo hadalkaygu waa qaari noqo oo quraanka ku baro online waa ubadkoo qurba jooga qadka iyo internetka casharada ka qaateen u kaalaya qaari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qaari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qaari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal maxamed maxamuud cade oo soo akhriyay maqaal uu qoray Dr. Mamduux Al-Munir ayaa khadka ku jira ugu horeyntii maxamed waxaad inoogu bilowdaa qormada qoraalkiisa muxuu ku bilaabay dhakhtarka Dr. Mamduux ayaa qoraalkiisa ku bilaabay saacadihii aroornimada bishii June 22keedii 2025 madaxweynaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in weerar guuleystay oo ku qaaday 3 xarumood ee nuclearka lagu tayageliyo wadanka Iran wuxuu ku andacooday in 3 gooboodba si buuxda loo burburiyay iyo in Iran barnaamijkeeda nuclearka dib loo dhigay markay ugu yaraato sanado xabad joojin ayaa isla markiiba uu ku dhawaaqay aroornimadaasi dhexmartay sida uu madaxweynaha ku dhawaaqay Mareykanka Tehran Iran iyo Israel ayadoo labada dhinacba ay sheegteen inay guul dhinaca kale ka soo hoyeen saacadii toddobaadii kadib ayaa waxa ciidamada sirta ay Mareykanka si buuxda ugu dusiyeen warbaahinta macluumaadyo la xiriira xaqiiqada dhabta ah ee ka duwan wixii hore loo sheegay duqeynta ayaa waxay ku sheegeen inay tahay mid guul dareysatay oo lagu gaari waayay hadafyadii istiraatiijiga ah iyo barnaamijka nuclearka Iran oo aanba gabi ahaanba la burburin sida ay ku andacoonayeen dowladaha Mareykanka iyo Israel waa gartay intii weerarku u dhacay Mareykanku ku qaaday Iran waxa soo baxayeen warar iskhilaafsan marka maxay yihiin xaqiiqooyinka hadda jira sida xaaladda ay tahay oo Dr. Maxamuud ka hadlayo xaqiiqooyinka marka laga gudbo in warar badan la soo dusinayo madaxweyne Trump iyo maamulkiisa ayaa waxaa la soo gudboonaaday su'aalo badan iyo macluumaadkii ay sheegeen oo ay su'aalo badan oo xaqiiqo ah ka soo noqdeen xaqiiqada koowaad Iran ayaa waxaa u haray baa leeyahay ama haysataa 480 kilogram oo nuclear la tayageliya oo boqolkiiba 60 ah taasoo ku filan baa leeyahay 12 nuclear bomb inay ka samaysato iyo haddii tayagelintii ay sii gaar lahayd baa la yiri boqolkiiba 90 waxaa u suuragal lahayd xataa inay samaysan karto bom wasakh ah oo laga samayn karo wax allaalay waxay hadda haysato xaqiiqada labaad ayaa lagu sheegay in Iran ay haysato 10 kun oo
agabka loo baahan yahay ee lagu dhammaystiri karo tayagelinta muddo toddobaadyo ah. macnaheedu yahay iiraan inay aqoon buuxda u leedahay agabka loo baahan yahay iyo aqoonta loo baahan yahay in nuclear lagu samaysto inay u dhammaystiran yihiin oo ay dhammaystiri karto bom nucleara iyo heerarka kala duwan uu marayo. xaqiiqada saddexaadna waxaa lagu sheegay iiraan ayaa waxa ay ku dhawaaqday bilo ka hor in 8 goobood oo cusub ay dhisayso oo lagu tayagelin doono barnaamij nuclear ah oo loogu talagalay in shidaal si nabada loogu sameeyo oo xaddigiisa kala duwan yahay. waxaana ka go'an in goobahaasi ay ka dhigto kuwa qarsoon oo aan cidna ogaan karin. hore waxaa loo sheegay in hay-adda caalamiga ah ee xakamaysa nuclearka ee IAEA lagu wargeliyay arrintaasi, kadibna waxaa xaqiijiyey madaxweynaha waddanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian oo sheegay in ay jiraan goobo kale oo nuclearka lagu tayageliyo oo dhulka hoostiisa ah oo mar dhow soo howlgeli doona. xaqiiqada afraadna waxaa lagu sheegay in hay-adda faafreebta ama xakamaysa nuclearka ee IAEA iyo saraakiisheeda inay hore ugu sheegeen madaxda Iiraan in bilo ka hor la dhammaystiray waxa ay ku sheegeen goobo qarsoon oo dhulka hoostiisa oo aad loo askeeyey oo ay ka mid tahay xarunta Fardow oo 800 mitir dhulka ka hooseysa. lama ogsoona xaddiga iyo goobta ay meeshaasi tahay maadaama wafdiga la geeyey meeshaasi la dhexmarsiiyey godad badan. waayahay haddii aad inoo sii wado qodobka shanaad, maxay tahay saameynta duqeyntaasi ay ku yeelatay xarumaha nuclearka Iiraan? maxaase laga ogyahay awoodda gantaalaha Iiraan? qodobka shanaad ayaa lagu sheegay in gantaalada Iiraan ay yihiin kuwa awood badan sida ay qiyaasayaan ciidamada sirta. waxayna leedahay kayd aad u fara badan oo kumanyaal gantaalada ballistikada ah iyo 10,000 oo gantaalyo noocyo kala duwan ah. waxaa intaas dheer in 400 oo gantaal ay Iiraan ku riday Israa'iil sida laga soo xiganayo saraakiisha ciidamada amniga ee Israa'iil bayaana ay soo saareen, taasoo macnaheedu yahay in xooggeeda gantaalada ay weli yihiin kuwa aad waxtar u leh. dhinaca kale macluumaadka iyo xaqiiqada la xiriirta in maamulka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka ay si wanaagsan u ogsoon yihiin waxa weeye in Iiraan ay gantaalo badan iyo agab badan haysato. waxaana soo taraya su'aalo la xiriira guusha weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen dhowr goobood oo lagu tayageliyo barnaamijka nuclearka Iiraan. caalamka oo dhanna iyo dadka arrimaha sayniska, siyaasadda iyo militariga ogna way ogsoon yihiin arrintaasi. macluumaadkan ay cid walba ogsoon tahay ayaanu marnaba soo maraynin dibnaha madaxweyne Trump iyo dadka la shaqeynaya. waxaana loo moodaa in isku daygii ay sameynayaan ay tahay in dadka lagu jeediyo. shaki weyn ayaa laga muujinayaa in lagu guuldaraystay in la gaaro hadafyadii lagu dhawaaqay ee duqeynta baa loogu talagalay ahayd in barnaamijka nuclearka la burburiyo. waxaa hubaala in Iiraan sidoo kale ay dagaalka khasaaro badan uu ku gaaray, saameynna uu ku yeeshay. taasi shaki ma laha. hase ahaatee hadafyadii Mareykanka iyo Israa'iil ay dagaalkan ka rabeen midnaba lama gaarin sida cid walba ogsoon tahay. arrintani waxa ay noqonaysaa midda keenaysa in qodobka labaad ee uu ninkan qoraaga ka hadlayo oo la xiriirta waxa uu xusayo ay ah in la fashilmay weerarkii koowaad. hadda maxaa la gudboon Mareykanka iyo Israa'iil? waayahay dagaalka waxaa bilowday Israa'iil oo taageero ka helaysa Mareykanka oo isagana dagaalka mar dambe gadaal ka soo galay. marka haddii aan la gaarin ujeedooyinkii loo qaaday weerarka, maxaa marka loo joojiyay dagaalka? sababta tooska ah waxaa la leeyahay nidaamka difaaca cirka Israa'iil ayaa waxaa ka dhammaaday gantaaladii, iyadoo Iiraanna hawadeeda ay dhowr goor xadgudub ku sameeyeen diyaaradaha Israa'iil ayaa waxaa dhici lahayd xaqiiqo ah in
iiraan ay awood u heli lahayd in ay cirka israa'iil ay la wareegto oo gantaaladeeda ay sidee rabto ugu duqayso. intaa waxaa dheer in israa'iil aynan awood u lahayn ay uga adkaysato gantaaladan iiraan ay soo ridayso ee wax burburinaya. bilowgii weerarka iiraan lagu qaaday xagga cirka ah aaraha dadka laga ururiyey israa'iiliyiinta ayaa waxa uu muujinaya in shacabka israa'iil boqolkiiba 70 ilaa 85 ay taageersanaayeen dagaalka, halka maalmihii ugu dambeeyey ee dagaalka ay tirada iyo khasaaraha soo gaaray marka la fiiriyo dadka iyo maalka iyo dhismaha hoos ayay u dhacday tirakoob kale iyo aaraha kale loo ururiyey. boqolkiiba 65 dadka israa'iil waxay dalbanayeen xabad joojin sida aaraha ururintaasi lagu ogaaday. cid kasta garwaaqsan karta in tirada intaasi la eg haddii ay ka soo horjeesan lahayd xukuumadda israa'iil oo nidaamkeeda difaaca cirka u dhicisoobay, waxaa dhici lahayd in hawadeeda ay furnaato, dagaalka iyo gantaalada ay iiraan wadan ay waxyeelo badan geystaan. iiraan ayaa waxay awood u lahayd inay gantaalo fara badan oo waxtarkooda aad u weyn yahay inay soo rido. israa'iilna waxay la kulmi lahayd khatar jiritaankeeda halis geliya oo ka timaada nidaamka gantaalada iiraan iyo bambooyinka ee lala yaabay iyo gantaalada lala yaabay ay iiraan israa'iil ku soo weerartay. taas ayaa waxa ay muujinaysaa bayaanada ay soo saareen agaasimaha guud ama xogayaha guud ee hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan nuclearka ee IAEA iyo wasiirada xukuumadda Netanyahu iyo Mareykanka saraakiishiisa oo kulligood sheegay inay iiraan awood u leedahay inay si dhaqso ah barnaamijkeeda nuclearka bilo gudihiis dib ugu soo celiso, taasoo ka dhigaysa dadaaladii Mareykanka iyo Israa'iil in ay la soo gudboonaato labo khiyaar. hase ahaatee khiyaar ayaa waxaa lagu sheegay maadaama ay awood u leedahay iiraan inay bam samaysato hadda ama in ay sugto inta go-aan siyaasadeed la qaadanayo. midda kalena waxaa lagu sheegay inay dib u soo ceshato in ay bilo gudihiis u tayageliso barnaamijkeeda nuclearka. labadaas khiyaarba sida laga soo xiganayo Mareykanka iyo Israa'iil macluumaadka amnigooda qaranka, Israa'iil waxaa ku soo food leh khatar jiritaankeeda halis ku ah. waa gartay waa yahay in aan si buuxda loo burburin barnaamijkii nuclearka iiraan iyo sidoo kale maamulka iyo nidaamka dowladda iiraan, maxay uga macno tahay Netanyahu oo isagoo ahaa ninka dagaalka bilaabay marka horeba? in lagu guuldareysto in la burburiyo ama barnaamijka nuclearka iiraan meesha laga saaro ayaa waxa ay noqonaysaa baa leeyahay in ra'iisul wasaaraha wadanka Israa'iil Benjamin Netanyahu in ay la soo gudboonaadaan qawaaniin iyo dacwado asaga ka dhan ah oo laga yaabo inay soo afjarto mustaqbalkiisa siyaasadeed. ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa hadda waxaa loo haystaa dacwado la xiriira musuqmaasuq, aamin xumo iyo wax isdaamarsiin. horena ayayna u bilaabatay dhageysiga dacwadiisa. maxkamadda Israa'iil ayaa ku gacan saartay codsi uu Netanyahu ku rabay in dib loogu dhigo dacwadiisa bishii Juun 27keeda markii labaad. hase ahaatee mar dambe ayaa maxkamadda ogolaatay inay dacwada dib u dhigto Juun 29keedii kadib markii uu codsaday in dib loo dhigo dacwadiisa musuqmaasuq la xiriirta. waxaana muuqata maxkamadda inay go'aan qaadatay in dhageysiga ku joojinayso Juun 30keedii iyo July 2deedii oo la rabay Netanyahu inuu maxkamadda soo hortaago. waxaa la fahamsan yahay shakhsi ahaan Netanyahu in uu arrintaasi ay culays ku ahayd, waxayna ku filan tahay baa leeyahay in madaxweynaha wadanka Mareykanka Trump uu si cad in ka badan mar uu u sheegay Juun 29keedii dacwadda Netanyahu ka dhanka ah waxa waajib ah in dhaqso lagu baabi'iyo lana cafiyo geesigan weyn. waa sidoo hadalka u dhigay oo wax weyn u taray xukuumadda Israa'iil. waxaa sidoo kale uu ku hanjabay in uu kula xisaabtami doono Israa'iil haddii maxkamadan la baajin waayo, sida ay sheegayaan Mareykankana uma dul qaadanayo in ay sii socoto dacwad ka dhana ra'iisul wasaaraha Netanyahu oo la xiriirta
eedemo musuq maasuqa. waa gartay marka isla arrimahaasi maxay ka dhigan tahay cadaadiska Trump uu saarayo hay-adaha garsoorka Israa'iil si loo cafiyo Netanyahu? Trump ayaa cadaadis xoog la saaraya nidaamka cadaaladda, waxaana loo arkay inay tahay wax qeyr caadi ah oo ka baxsan wixii la arki jiray, waxaana daboolka laga qaaday xaddiga ay saameyn ku leedahay Netanyahu dacwadaha ka dhanka ah iyo dagaalada uu ku jiro marka la isbarbardhigo Gaza ka dhanka ah, Lubnaan ka dhanka ah, Iiraan ka dhanka ah. Lafagurayaasha ayaa waxay ka hadlayaan in saameyn weyn uu ku yeelanayo dacwadan maxkamadda uga furan iyada oo dagaalka uu ku jiro. Arrintaasna waxay u muuqataa inay tahay kabadbadin. waxaa kaloo ayadana muhiimadeeda leh oo la isla soo qaaday in dadka basaasiinta ah ee Iiraan gudaheeda ka shaqeynayay dagaalkii Iiraan iyo Israa'iil, haddii Israa'iil ay hore uga shaqeysay inay dadkaasi abuurato, hadda waxaa daba socda nidaamka ammaanka ee Iiraan, taasoo macnaheedu ay tahay in laga yaabo in la burburiyo ciidamadii ay ku guuleysatay ama hay-adihii sirta ee Israa'iil ku guuleysatay in ay barnaamijka nuclearka Iiraan gudihiisa ku burburiso iyadoo adeegsanaysa ciidamada sirta. Arrintaana waxa ay keentay in tartan xoog leh oo waqtiga xaggiisa lala dagaalamayo lagu tartamo, iyadoo hawshu ay tahay sida looga taqallusi lahaa dhinaca Iiraan marka la fiiriyo ciidamada sirta ee ku sugan Iiraan gudaheeda iyo Israa'iil oo doonaysa in hawshii ay nimankaasi qabteen ee dagaalka bilowgiisa guushii ay gaarsiiyeen inay khasaaro ku dhamaan. maxay tahay danta Netanyahu ugu jirta in dagaalku sii socdo, ama ha ahaado dagaal Iiraan mar kale lagu qaado ama dagaalka Gaza, in dagaalka uu sii socdo xitaa haddii uusan ku guuleysanayn? sida laga soo xiganayo amniga qaranka ee Mareykanka iyo Israa'iil marka la fiiriyo arrimahan la xiriira Iiraan, waxaa la sheegayaa in ay khatar weyn Iiraan ay wadato ama ay hubkeeda iyo ciidankeeda iyo waxa ay ka shaqeynayso nuclearka marka aragay in khatar weyn ay ka soo food leedahay. Netanyahuna shakhsi ahaan ayuu wuxuu rabaa in uu sii wado dagaalka si uga baaqsado in maxkamad la saaro Iiraan ka dhanka ah. haddii colaadda ay sii socotana waxay cudurdaar u siinaysaa in dib loo dhigo fadhiyada maxkamadda, bartilmaameedkana la siiyo ama mudnaanta koowaad la siiyo arrimaha amniga iyo difaacidda Israa'iil sidii uu hadda ka horba yeelay haddana yeelay. waxaana muuqata inay muhiim tahay in waxa hadda socda ay tahay codsigii uu soo jeediyey ee maxkamadda dib loogu dhigayay. dagaalka ayaa waxa uu gacan ku siinayaa Netanyahu inuu isku hayo xukuumaddiisa xagjirka ah ee wasiirada xagjirka ay ku jiraan. haddii ay ka baxaan wasiiradaasi xagjirka ah, waxaa dhacaysa oo nabad la qaato in xukuumaddiisa ay burburayso, kadibna doorasho hordhaca la gelayo loogana adkaanayo doorashadaasi. waxaa iyadana muhiimadeeda leh in dagaalka uu fursad u siinayo Netanyahu in uu iska dhigo hogaamiye dagaal oo difaacaya danaha Israa'iil iyo jiritaankeeda khatarta ku soo food leh. tanna waxaa laga yaabaa inay u keento in ay u garaabaan dadka oo ay xoogaa guula u keento dhanka shacabka, hoosna u dhigto saameynta dacwooyinka musuqmaasuqa ee ka dhanka ah. iyo xirfad siyaasadeed ayuu ninkan isticmaalaa oo ah aniga ay taageerina caalamka taageera, wadanka ayaa dagaal khatar ku jira. hore ayuu Netanyahu u isticmaalay, haddana waxaad moodaa inuu shaqeynayso. sida laga soo xiganayo macluumaadyo kala duwan, khiyaarka dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Iiraan ayaa weli waxa uu yahay mid dhici kara, waana khiyaarka keliya ee dhowrka bilood soo socda laga yaabo inuu dhaco. waxaana laga yaabaa xataa inuu dhaco xilligan xagaaga ah ee lagu jiro. waa gartay, waa yahay. ugu dambeyntii muxuu qoraagu ku soo gabagabeeyey qormadiisa? Israa'iil oo tallaabo weerar oo military ku qaaday wadan xubinka ah
golaha ammaanka ee qaramada midoobay xadgudubna ku samaysay qawaaniinta caalamiga ah sida qoraaga uu sheegayo cid kula xisaabtanta ma jirto sababtoo ah waxaa difaacaya wadanka Mareykanka oo wali waxaad moodaa Israa'iil in ay u caaboon tahay inay dagaal cusub furto oo ka dhana wadanka Iiraan dagaalkaas waxaa laga yaabaa in uunan muhiim u ahayn in uu u bilowdo sidii kii hore oo kale laakiin dagaalkani waxa uu noqon doonaa mid Israa'iil ay rabto Iiraan gudaheeda inay ka geysato weeraro khaarijin ah iyo qarxin gooba xasaasi ah haddii ay Iiraan ku jawaabto weeraro aad u culus oo dardar gelinaya dagaalka waxaa laga yaabaa in ay mar labaad u qarxo dagaal weyn oo gobolka bariga dhexe ka dhaco ayuu qoraagu ku soo gabagabeeyay